haddii aan reer hawiye nahay in nabad la helo in dadka Soomaaliyeed ay isu yimaadaan ay midoobaan waa la waayay taas sida idin cad waa u jeedaan dagaal baa la qorshaystay lagu cirib tirayo hawiye ilaaha cirib tiri karo cidna ma cirib tiri karto waxaan u jeednaa dhuusamareeb waxa ka dhacay hiiraanna diyaarada loo soo fuulaa waa maantay soo degayaan sidaan maqlay war intaa tabaabuusaysanayseen waa tasanaynaa anagan garoonku waa xiran yahay gees walbuu ka xiran yahay diyaaraddii timaadda oo ciidankeenta wixii ku dhaca waxaa la weydiinayaa Fahad Yaasiin iyo Farmaajo hadday idinla tahay kaligiin aqoon ciidan iyo xirfad ciidan inaad haysaan intaas nin raba qabiil ahaan dadka inuu u baabi'iyo oo qabiilkiina idinku dilaayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo la sheegayo boqolkiiba 80 waa hawiye ayaga la rabaa in la isku dibiyo kii xagga ka dhintana waa faa'iido kii inta ka dhintana waa faa'iido ragga saasa u qorshaysan hawiye axmaar maaha dad Soomaali ah waay dad wax iska dhiciyo waay haddaad naga deyn weysaan dagaalka oo dagaalka la joojin waayo dhuusamareeb laga joojin waayo halkan dadka loo soo wadana la joojin waayo oo nabad la waayo waxaad ogaanaysaan adinkana inaad xamar joogi doonina gabar wiil oday ciroole caam wadaad ninka haddii gurigiisa loogu soo galo xaquu u leeyahay inuu dagaalamo diinta qabta fadhiga ka kaca dagaalama iska dhiciyo wax bari wixii ka dambeeya xamar iyo nabad noqon shirkaygan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta anigoo ah afhayeenkii kacdoonka gobolka Hiiraan waxaan rabaa inaan Soomaalida uga qaado international community-ga iyo ilaa idimkiis dawladaha siyaasadda Soomaalida naynayo ay dawladda Turkiga koow ka tahay waxaan rabaa inaan uga qaado walaalayaal shalay iyadoo calooshana laga hayay oo aan diidanayn dagaalka dhuusamareeb maatada curad iyo ciribah iyo boqor leh oo dagaalka xasuuqa ah ciidamadii qaranka loo adeegsaday hubkii dal iyo dibad lagu difaaci lahaa ciri iyo xaduud lagu difaaci lahaa in shacabkii canshuur bixiyayaasha ah oo Soomaaliyeed oo gobolka Galgaduud joogay gaar ahaan degmada dhuusamareeb in lagu xasuuqayo iyadoo shalay caloosheeda xanuunkeeda noo hayay ayaa haddana waxa ku soo zaa'iday in la yiri Fahad Yaasiin iyo odawaay labaduba waxay amreen inay Hiiraan ciidamo u soo diraan 4 diyaaradooda oo magacyo kala duwan oo kuwa baahala iyo kuwa duunyo intaba leh in la ka soo degayaan waxaan rabnaa marka inaan Soomaalida u cadeyno UN-ka u cadeyno dawladda Turkiga u cadeyno uma aadan tababarin shacabka Soomaaliya in la xasuuqo uma aadan tafsiinin hubka in shacabka lagula noqdo uma aadan tababarin in qabiil loogu kala aarsado uma aadan tababarin dawladda Turkiga wasiirka gaashaandhigga andata militaraha dalkan joogo iyo dawladda Turkiga waxaan u sheegaynaa foolxumada iyo ceebta maanta caalamka ka haysato hubkii ay bixisay iyo ciidamadii tababartay in iyagoo qabiil ay adeegsanayaan qabiilnimo dadka shacabka loogu xasuuqayo taas waa dawladda Turkiga iyo dadka xulufada ah oo ciidamada Soomaaliya taageero waa qodobka labaad dagaalka Galgaduud ka socdo gaar ahaan guri ceel ka socdo oo ugaas iyo culumo iyo caamo iyo caaqil guud iyo gablan ciroole iyo caamo maanta banaanka ay ka tuuran yihiin annagoo diidanayn haddaan shalayna reer Hiiraan gadaashoodana ciidamo kale la soo daba mariyana waa mid Fahad Yaasiin iyo odawaay ka timid laakiin waxaan u sheegayaa qabriga ay geli lahaayeen iyo godka ay geli lahaayeen inay Hiiraan tahay waxay shacabka gaarsiiyaanna in bari laga la xisaabtamayo Fahad Yaasiin iyo odawaay محمد